wasiirka caafimaadka ee Puntland Dr. Cabdinaasir Cismaan Ciise ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay xarunta hooyada iyo dhallaanka MCH-ka Boosaaso oo sidoo kale xarun u ah wasaaradda caafimaadka Puntland halkaasi oo la rajeynayo in lagu sameeyo dib u dayactir iyo ballaarin mashruucan oo ay fulinayso hay'adda Save the Children ayaa waxa la qorsheynayaa in lagu ballaariyo xaruntan oo loogu adeego hooyada iyo dhallaanka sidoo kalena qayb kamid ah ay degan tahay wasaaradda caafimaadka qaybteeda magaalada Boosaaso waxa sidoo kale halkan laga hirgelin doonaa qaybta keedka ee daawooyinka oo ay hirgelin doonto hay'adda Save the Children ugu horreynna wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Cabdinaasir Cismaan Ciise ayaa sheegay kana warbixiyay qorshaha iyo qaabka la rajeynayo in laga dhigo xaruntan waxaan rajeynaynaa marka in halkan isbedel weyn ka soo baxo sidoo sheegay madaxa Save Children Cabdiqafaar qaybta sare oo qayb dabaqay noqon doonta qaybta sare ay noo noqoto qaybtii maamulka oo isna hoolal iyo aan ku yeelano iyo qaybihii daawooyinka at same time halkan waxa ku jiri doona qaybtii hoos oo dhan looga baxo hawlaha ah qaybaha maamulka ku jireen uga baxaan oo loo dayactiro MCH-ki hawlihiisa oo ballaaranaya inuu ku qabsado marka waa dhagax laba ku dil xaruntii maamulka gobolka iyo MCH-ki oo la dayactirayo hoos oo dhan looga baxayo loo deynayo inta aad baan ugu faraxsanahay hawshaas waxa inta noo weheliya inta kaliya ma hawshaan u nimi meesha tan hawlo kale ma isla maanta qaban doona arki doontaan laakiin waxa ku jiri doona MCH-ka halkan ma ahane MCH cusub oo magaalada aanu ka furi doono hadhow baan tagi doonaa isagana iyo saddex laga dayactiri doono meelaha fogfog degmooyinka fogfog oo isla gobolka Bariya programkan wuxuu la socdaa programyo badan oo dhisme iyo dayactirra oo gobolada oo dhan ka socon doona hadii Rabbi idmo sida hadda xaruntan aanu dhex dhigayno baan hadii Rabbi idmo aan jecelahay mar dhow inaanu sidaas mudug iyo nugaal xarumahooda gobolka ayagana la dhex dhigo wixii dhiman MCH baanu iyo xarumaan ku mashquul laakiin maamulka badi waa la ilaawa hawshaas dhan waday marka waxaan rabnaa inaanu maamulka soo gaarsiino hawsha ballaaran ay hayaaniin oo fidado ilaa tuulo taala xarun loogu shaqeyn lahaa in baan u soo jeensanay Cabdiqafaar Cilmi Xange hormuudka hay'adda Save the Children ee Puntland ayaa isaguna sharaxaad ka bixiyay muhiimadda ay leedahay ballaarinta xaruntan kol hore la dhisay u baahan yahay mataqaana in la fidiyo maadaama hawlaha shaqada ee wasaaraddu ay aad u ballaaran yihiin maadaama ay ka yihiin qolalka xafiisyada loogu talagalay intii shaqadu u baahnayd waxaan isla qaadanay in la casriyeeyo oo laga dhigo dabaq shanta qolna lagu daro iyo hawlka loona dayactiro kaydka dawada aniga iyo saaxiibada iyo dhammaan wasiirkana intii waan ku faraxsanahay maad xarunta naga xigayno waana mahadsantahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh hadana waxaan ku soo dhaweynaa ugu dambeynna Axmed Xaaji Cabdullaahi gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Bari ayaa u mahad celiyay hay'adda Save the Children iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Puntland dadaalka ay ugu jiraan tayeynta caafimaadka baynu ku mahadinaynaa inaynu isugu nimaadno arrin horumar ah oo bulshada horumarkeeda ah oo la og yahay caafimaadku inuu yahay waxa ugu horeeya oo bini aadamka noloshiisa ku tiirsan tahay dhagax dhigi baynu maanta joognaa ilaahna waxaanu ka rajaynaynaa inuu inoo hirgeliyo haddii uun kolley tacab iyo juhdi iyo hawl bayna ku timid intii ku soo tacabtana jazaa khayr allaha ka siiyo ugu dambeynna mas'uuliyiintan kala duwan ayaa waxay dhagax dhigeen xarun cusub oo laga dhagax dhigay xaafadda Alfardows ee Boosaaso waxaana xaruntan ama MCH-kan uu noqon doonaa mid u adeega dadka xaafadaasi Yuusuf Cabdi Shire wararka telefishinka idaacadda SBC Boosaaso